gudoomiye Mungab oo furay albaaba uu shacabka Muqdisho ku xiray farmaajo 8 sano kadib wadadan aad aragtaan iyo wadadan iyo mid kale oo muhiim ayaa maanta dib loo furay waxaan kula wadaagi doonaa tallaabooyinka uu qaaday duqa Muqdisho qaabka shacabka Muqdisho ay u arkaan jaamkii magaalada oo kala yaraanaya kadib go'aanka gudoomiye Mungab haddaba sidee u aragtaa furista wadooyinkan aragtada qaybta hoose ee comment-ka noogu reeb maanta mar kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ah duqa magaalada Muqdisho Jalaal Xasan Maxamed Xuseen Mungab ayaa qaaday tallaabo ka ficilsay shacabka magaalada caasimadda ee Muqdisho waxaana uu dib u furay 3 wado oo halbowlo u ah shacabka magaalada caasimadda ee Muqdisho wadadan aad aragtaan waa wadada ka baxda laamiyaraha Soobe isla markaana gasha wadada sahal agmarta si toosana u gasha garoonka diyaaradaha ee Cadiya magaalada Muqdisho si lamid ah wadadan kale aad aragtaan waa wadada dhaxmarta Buulaweykiyo ee gasha halka yiraahdo sahal kadibna waxa ay si toos u aadaa garoonka Cadiya magaalada Muqdisho labadan wado waxa ay qayb weyn ka ahaayeen jaamka iyo dhibaatada xirnaashooda gaar ahaan wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho dhanka iyo Soobe ilaa Lambar oo maalin walba markaad aragto iyo saacad walba jaam ah ama cariiri ah ugu dambeynsa maanta kadib waxay noqon doontaa wadooyin furan oo ay shacabka dhinaca ay rabaan ay u maraan marka loo eego mootooyinka wadadan kala aragtaan oo wadada saddexaad ee maanta duqa magaalada Muqdisho Jalaal Mungab uu furay waxaan ay ka soo baxdaa sanco beexaan ay martaa waxay si toos ah u gashaa albaabka Stadio Konis ee degmada Cabdilcasiis ee gobolka Banaadir laamiga gaadiidka ayay ku dhacdaa halkaas oo iyana dhibaato weyn ku yeeshay shacabkii Soomaaliyeed ee halkaas mari jiray gaar ahaan shacabka magaalada Muqdisho wadadan waxay ahayd marka aad rabto Konis in aad soo wareegsato aad soo marto isbitaalka Umma iyo sidoo kale Lansalete sidaasna aad laamiga kale uga soo dhacdo dhanka ay mirnaayada kadibna aad laamiga la soo leexato laakiin maanta kadib ma dhici doonto adiga oo 2 talaab mari karo ma soo mari doontid 100 talaab waana tallaabooyinka farxadda leh ee uu qaaday gudoomiye Mungab ee shacabka culayska uu kala yareenayo afartii bishan ayay ahayd markii gudoomiye Mungab sidan oo kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu ku welinayay safar dheer oo lagu qaaday dhagaxaan yaalay wadooyin magaalada Muqdisho oo xirnaa sanado badan ugu dambeyn maanta ayaa mar kale la qaaday dhagaxaantii 3 wada tiilay 8 sano ku dhow ayay wadooyinkan xirnaayeen waxaana shacabka magaalada Muqdisho dhibaato badan ay ku qabeen marista wadooyinka iyadoo inta badanna galbihii iyo gabaldhici marka dadku ay hooyanayaan iyo subaxii marka dadku ay soo baxayaan ciriiri badan ay dadku dareemi jireen wadooyinkan xiran awadood maadaama aysan mootooyinkii mari karin laakiin ugu dambeyn xilligan aan la hadlayo wadooyinka way furan mootooyinkana way marayaan magaaladana jaamku uu ka yaraaday gudoomiye Mungabna waxa uu noqday nin u damqada shacabka magaalada Muqdisho marka uu la wareegay xafiiska ayuu ballan qaadkan sameeyay waxaana uu u ballan qaaday shacabka magaalada caasimadda ee Muqdisho inuu furi doono wadooyinka magaalada ee amni darada loo xiray maadaama magaalada amnigeedu soo hagaagay markii ugu horeeysan waxa uu ka bilaabay wadada marta dhabarka isbitaal Digfeer ee magaalada Muqdisho wadadaas oo halbowlo u ahayd shacabka caasimadda waxaana soo dhaweeyay dhammaan bulshada qaybahooda kala duwan gaar ahaan darawalada mootooyinka iyo gawaarida wada iyagoo u arkay fursad muhiim ah iyo tallaabo uu qaaday gudoomiyaha gobolka Banaadir ah duqa magaalada Muqdisho gudoomiye Mungab waxa uu ballan qaaday in la furi doono wadooyin kale oo magaalada in la dhisi doono jidadka waaweyn ee magaalada koonaheeda iyo gudaheeda ku yaala magaaladana dib ay u soo noolaatay bilicda nadaafadda marka aad eegto dib u socoshada wadooyinka ama dib u kabashada wadooyinka dhismaha wadooyinka dhammaan markii uu yimid xafiiska kadib dib ay u soo noolaadeen waxaana uu qaadayaa waxyaabo farxad gelinaya iyo sidoo kale waxyaabo ay soo dhaweynayaan shacabka magaalada caasimadda ee Muqdisho assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka hore waxaan salaamahayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogaan waxaan u mahadinayaa Allah subhanahu wa ta'ala aha isuka keenay maanta waa maalinkii labaad ee bambaxa ururada siyaasadda ee diiwaan gashan guddiga madaxa bannaan ee doorashada qaranka maanta waa noo xirmi doonaa shirka waxyaabo fara badan baan jiif garaynay shaqooyin badan baan qabanay waxa sharaf weyn noo ah in la joogaan dhammaan ururadii diyaarka u ahaa inay ka qayb qaataan doorashada soo socota bisha November 3keeda sanadkan 2025 ee ka dhici doonto gobolka Banaadir waxa kale sharaf noo ah inay garbahina taagan yihiin rugcadaayal siyaasadeed oo Soomaaliya xaalad adag soo xukumay madax ka ahaan jiray taas waxay muujinaysaa in la gaaray xilligii dadka Soomaaliyeed ay ku qanci lahaayeen
boqolkiiba boqol in la gaaray inay codkooda dhiibtaan codkoodana ku cilbaxaan bambaxa labaad maanta waxyaabaha aan guusha ku gaarna waxaa ka mid ahayd inaan dhammaan diyaar u nahay oo lagu tareyngareeyay ururada diiwaan gashan inay boqolkiiba boqol diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan doorashada soo socota walaalayaal saa la socotaan guddigan sharafta leh waxa uu jiraa 10 bilood maalinkii la baasgareeyey oo baarlamaanku uu ansixiyey oo annaguna aan guddankeena doorannay 45 beri gudaheed waxaan gaarnay inaannu 3 kambani aan tartansiino si loo helo qalabka doorashada kambani ka mid ah ku guulaystay annagoo u fiirinay capacitigooda iyo khibradooda waxaa noo suuro gashay annagoo 4 bilood ka yar jirna inaan bilaawno diiwaangelintii dadweynaha gobolka banaadir geediga aan bilawnay bishii abril 15keeda waxa aan ku soo xirnay diiwaangelintii bishii Sebtembar 30keeda sanadka waxaan ku guda jirnaa qabanqaabadii iyo diyaargarowgii maalinta codaynta waxaa sharaf noo ah guddiga haddaan nahay in kambaniga aan u qaadanay inuu qalabka doorashada sameeyo inaan annaga u dirnay audit before aynan siinin contractiga waa ku baaseen kadibna waxaan bilownay inay shaqadii bilowno shaqada intii socotanana kambanigu wuxuu ku guulaystay ISO standards oo dad yar ay haystaan sida Hormuud iyo Golis annagoo mar walba ka fakarayna xaaladda dalka uu ku jiro iyo dalkan oo 56 sano ayna ka dhicin wax doorasho ah waxa aan dhageysanay qaar ka mid ururada siyaasadda ee diiwaan gashan dalkeenna inay codsadeen in lagu sameeyo audit qalabka doorashada saa la socotaan guddiga doorashadu xilliga ay doorashada socoto lama baaro ama waa in la baaraa ka hor doorashada natiijada markay dhammaato kadibna in la baaraa annagoo fiirinayna saaxada siyaasadda inaan ballaarino waxa aanu tartan siinay 3 kambani ka mid aan qaadanay oo aan ku qiimeynay xajmiga iyo aqoonta u leeyahay shaqada aan rabin la qabto waa kambani soo audit gareeyay oo ka shaqeeyay bangiyada waaweyn ee dalkeena ku yaala Salaama Bank uu ka mid yahay iyo dhammaan hay'adaha kale dalka saa la socotaan 2 wiil ka hor waa annaga idin qabanay shir idin pressure gareynay inaan shirkadaas rabno inaan auditka qabato shaqadoodana meel fiican ay maraysaa waxaan qiyaasaynaa in wiilka soo socda reportka uu soo bixi doono waxaan mar kale u dirayaa baaq ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan haddaan nahay guddiga madaxa bannaan ee doorashada qaranka waxaan diyaar u nahay albaabkeenu u balaqan yahay inaan wax allaale iyo wixii question la qaba ah xarunta noogu yimaadaan waxaan u bandhignay dhammaan culimada Soomaaliyeed waxaan u bandhignay dhammaan qaybaha bulshada kala duwan ee Soomaaliyeed waxaan u bandhignay dhammaan ururada siyaasadda ee dalkeena ka diiwaan gashan annaga aan diiwaan gelinay waxaan u bandhigaynaa dhammaan shacbiga Soomaaliyeed annaga waxaan rabnaa dalka Soomaaliya manhajkana loo dhiibay oo ahay dalka inaan gaarsiino doorasho qof iyo coda inaan maanta hayno 61 urur oo diiwaan gashan inaan hayno million people ku dhawaad oo ka diiwaan gashan gobolka Banaadir dhammaan gobolada dalka oo dhan aan diiwaan gelinta ka socotaa badankooda 40 degmo ayay ka socotaa maanta diiwaan gelinta waxaan rabnaa insha Allah taala inaan maalinka ay shirkadu soo bandhigi doonto reportka guud ee auditka ay u noqdo public iyo televised qaybaha kala duwan ee bulshada oo dhan ay ka soo wada qayb galaan insha Allah taala including ururada siyaasadda waxaan kaloo rabaa maanta inaan uga faa'iideysto waxaan shaacin doonaa liiska dadka aan diiwaan gelinay ee ku meel gaarka ah bishan October 19keeda waa maalinka Axadda ah waxaan gudbin doonaa within 2 weeks gudahoodna waxaan shaacin doonaa liiska ugu dambeeya oo ah finalistiga dadka diiwaan gashan November 3keeda insha Allah taala waxay noqon doontaa maalin weyn ummadda Soomaaliyeed after 56 sano dadku aad aragtaan iyagoo codkooda dhiiban doona insha Allah taala waxaan ururada ka rabnaa inay diyaariyaan musharaxiintooda campaignkooda waa furan yahay hadda wixii ka dambeeya wax allaale iyo wixii loo baahdo oo ma aragtay qabanqaabadooda la xiriira annaga ayaa mas'uul ka ah amnigooda iyo goobahooda intaba insha Allah taala waxaan rabaa maanta inaan mar kale u hablayo ummadda Soomaaliyeed sida sharafta leh ee guddigan u aamineen iyo madaxda iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed waa ku mahadsan yihiin waxaan rabnaa hawshayadu 2 step aan noo dhiman kaararka aan qaybino iyo maalinka November dadkan u codayna insha Allah taala qof walba codkiisa dhiibto salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh Thank you.